بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله soo dhawaada waxaan meeshan ka hadlaynaa introduction to C++ programming C++ programmingka waxaa meeshan laga rabaa insha allahu tacaala inaan ku barano ama looga baahannahay inaan ku barano maadada C++. CBB na waa loo qoraa C++ na waa loo qoraa maadadaas oo aad muhiim u ah ahna aasaaska programmingka runtii dhihi karo. waxaa jirta maado ayada ka yar horreysay oo C language loo yaqaano, laakiin C language waxay ka kooban tahay qayb ka mid ah C++. marka C language C++ waxaa iskula jira wixii C ku jiray iyo ziyaada ayaa ku jirto. marka waa laga kaaftoomi karaa C language hadduu qofku C++ dhigto almost inta badan waa interchangeable xitaa, laakiin markaad device-yada qaar hadda waxaa muhiimada programming language wax loo isticmaalo waxa ugu muhiimsan mashiinada marka la programinayo, mashiinada iyo koodharka marka la qoraayana hadduu qofku C yaqaan iyo hadduu C++ yaqaanaba intaba wuu ku qoran karaa, midka rabtaad ku qoran kartaa. marka wax shida ma lahan. marka introduction to C++ programming ayaa ka sheekeyn doonaa insha allahu tacaala. markaan u imaana marka waxaan ka hadlaynaa computer languages ama language-yada computerka uu leeyahay. computer languageska maxay yihiin? waa language-yada uu isticmaalo ama uu leeyahay computerka waaye. saa ogtiin language maxaa language wax lagu wada hadlo ama waa luqad. dadku waxay ku wada hadlaan luqaday iskula hadlaan. hadduu qofka luqadiisa aadan garanaynin ma la hadli kartid. sidoo kale intuu computerka luqadiisa haddaad aqoonin ma la hadli kartid. waa machine, waa dhagaxaas laakiin wuxuu leeyahay instructions iyo languages la raacayo. haddii marka uu qofku fahansan yahay aad ay u sahlan tahay markaas. machine language waxay ahayd language ugu horreeyay ee loo qoray computerka loo isticmaalo ahaa. wuxuu ku dhahay machine language. marka machine language waa luqadii u horreysay ee computerka marka la sameeyey ama la curiyeyba loo isticmaalay ayuu ahaa. laakiin waxay ahayd si guud markaan ka hadalo waxay ahayd language marka si detailkiisa marka inaan soo koobaan idin rabaa si idea uga qaataan. waa language kaliya ee uu si toos ah computer u fahmi karo, waxayna ku xirnayd ku dhahay by hardware design. waa machine dependent ahayd. machine dependent waxaa la dhahaa languageska waxaa loo kala qaadaa portable iyo non portable loo kala qaadaa. marka machine language waxaa machine haddii lagu qoro machine kale lama geyn karin, kanay ku xiran tahay. generally wuxuu ku dhahay si guud waxay ka kooban tahay string of numbers ama 0 1s ay ka kooban tahay. 0 iyo 1s ay ka kooban tahay. 0 iyo 1ska waxaa waaye 0 iyo 1s ay ka kooban tahay. marka 0 iyo 1skana waxaa waaye waa 0 1 0 1 and 0 1 0 1 marka si guud waxay ka kooban tahay ku dhahay string of numbers 0 iyo 1 ay ka koobnayd. instructive computers waxay amraysaa computerka si uu u qabto waxaan ku dhahay elementary operationska halkii marba hal amar ay siinaysaa. cumbersome for humans dadkan aad ayay ugu adkayd. tusaale ahaan oo kale hadda lambarkan oo kale fiir meesha ku qoran +1 3 0 waxaas oo binary laga dhigo. waa example shaqay qabanay waxaan hadda waan arki doonaa marka assembly language ama kuwa kale shaqooyin dhacayo waa hadda waxaan languageka machine language wuxuu ahaa midkii ugu horreeyay. midkii ku xigay wuxuu ahaa assembly language. assembly languageku waa sida Englishka kale caadiga ah oo la soo gaagaabiyo waayo oo matalayso elementary computer operations matalayso. dadku way u caddahay oo way fahmi karaan oo way u sahlan tahay. wuxuu ku dhahay sidoo kale tana marka la fiiriyo translator ayaa la isticmaalaa loo yaqaano
assembly la dhaho ayaa la isticmaalaa kaasoo u bedelaya machine language-ka oo ka dhigaya assembly language-kaagii assembly kaaga dhigayo machine language laano machine-ku si uu fahmo wuxuu u baahan yahay tarjume ayuu u baahan yahay waxaan ka turjuma luqad oo luqad kale ka dhigo marka waxaa jirta waxa la dhahayo compiling iyo interpretation iyo assembly inaga marka hadda waxaa naga qusay compiling-ka way noo imaan doontaa ama compilerska way noo imaan doonaan laakiin hadda assemblerku waxaa waaye luqadda waxaa waaye waa assemblyga isticmaasho wuxuu ka bedelaa assembly language-ku wuxuu ka bedelayaa assembler ayaa la dhahaa assembly language-ku wuxuu ka dhigayaa machine language wuxuu ka dhigo hadhow machine-ku wuu fahmi karaa markaa hadda tusaalahaan oo kaleeto lambaradii halkan ku arkaynay ee ahayd plus 130042774 ahayd halkan oo kale marka imaato waxaa laga wadaa load base bay ayaa laga wadaa marka load waa instruction base bayna waxaa waaye waxaa waaye waa loadka waa amarkii waa instructionkii base bayna hadhow markii assembly la joogo waxaa loo yaqaanaa operand marka opcode iyo operand la kala dhahaa waan gaari doonaa waxaas waxyaalo kaleeto waa ka baxsan laakiin operanda ayay noqonayaan kuwa halkana waxay noqonaysaa opcode noqonay marka opcode iyo operand la kala marka waxaa waaye kanoo kaleeto hadda lambar uu taagan yahay kanoo kale lambar uu taagan yahay kanoo kale lambar laga dhigaa machine language ku joogo kanoo kale lambar laga dhigaa hadhow lambaradaas lagu xisaabtaa markaas hadda hadalkan waxaa macnihiisa waxaad ku soo shubtaa computer memory-ga base bay ku soo shubtaa waxaad ku dartaa overbay-ga ku dar kadib markaad isku dirtid labadaas waxaad ku kaydisaa cross bay-ga ku kaydi meeshii la dhihi lahaa hadda haddii xisaab laga dhigi lahaa ama high level language la joogi lahaa waa arki doonaa waxay noqon lahayd cross bay wuxuu leeyahay base bay lagu dhigtay overbay ayay noqon lahayd marka sidaas ayaa laga wadaa computer language-ga wali ku jirnaa marka waxaa la kala dhaafiyay machine language ugu horeyso waa laga soo tegey assembly language ay maatay assembly language waa luqad dhexe oo assembly hayna aan ahayn lowna aan ahayn waxa la raaciyaa laakiin low aan raaciyaa culimada inta badan waxay dhahaan low way dhowdahay dhahaan high level languages kuma ahan high level languages featureskeeda ma laha low level language oo 00 na ma ahan marka middle ayaa lagu tiriyaa marka waa iska dhexaad ayada laakiin machine language machine ka bisa fahmi kara marka ayadu waxay u dhowdahay laakiin haddii la dhaho dhawaansho haddii la dhaho dhexaaday dhacdaa inta badan low level languages marka la tirnaayo waa lagu tiriyaa oo buugta qaar ay soo qoran tahay high level languages ka ayaan wali ku jirnaa wuxuu ku dhawarto waxay la mid tahay sida English caadiga ama English caadiga ah ayaa la mid tahay oo sida loo isticmaalo kale waxaa la isticmaalaa common mathematical notations calaamadii caadiga isku dar kala jar waxa la xisaabayaa halkii statement ba waxay qabanaysaa ku dhahay essential task shaqay qabanaysaa assembly language waxay u baahan tahay instructiono badan si ay u qabato a simple task laakiin tan way ka fududahay waxaan isticmaalnaa translator programs ayaan isticmaalnaa loo yaqaan compiler fiiri assembly language waxaa la isticmaalaa assembler ayaa la isticmaalaa high level languages kan waxaa la isticmaalayaa compiler la isticmaalaa translator ka meeshan u joogo waxaa loo yaqaan compilers wuxuu u bedelayaa machine language high level language ka soo bedelayaa machine language ka dhigaya waxaa kaloo jira kuwa loo yaqaan interpreter programs interpreter macnaha waxaa waaye marka meeshaas turjume iyo mufassir ay kala dhahaan ama fasire iyo turjumaad iyo fasiritaanna farqi u dhaxeeyo turjumaad hadda waa inaan ku dhaho translator programs midka turjumo convert wuxuu bedelaa to machine language uu bedelaa inaan saas ku dhaho waa iska turjumaad xarfi ah dhaha laakiin marka kaas waa compiler oo asaga wax kala qaban wuxuu ka soo turjumayaa luqad kale ka dhigaya turjumaad laakiin tafsiirku saas ma tafsiirku waa in shayga macnihiisa dib loo dhaxgalo oo la dhaho interpreters waa saas waxay sameynayaan marka directly wuxuu ku fulinayaan ku dhahay high level language programs kuwan wax fasirayo marka aad qoraysid bay kaasi caawinayaan marka shaqada way sii dhacay markii waa la sii turjumaa loo fasira macnaha shaygu sii ogaanaa hadda wuxuu ka soo qaatay marka ama interpreter isticmaal ama compiler isticmaal mid ka rabtid bay isticmaal high level language labadaas isticmaalaan cross bay ayaan dhahnay su'aal ka tii hore fiir hadda waa warkii haday kor ku qorna waxa la yiri marka hore base bayga waxaad ku shubtaa over maxaan ku dhahay overtime bayga ku shub lacag rabo in la xisaabiyo qof lacagtiisa waa example kan marka waxa la rabaa qofkan wuxuu helay maxaa lacag qofka muxuu mutaysay qofkan
lacagtii basekeed oo lagu daray waqtigii dheeriha uu shaqeeyey hadalka marka halkan fiiris high level language markaad joogtid waa easy mathematical maxaan ku dhahay waxay qabanaysaa oo notations waa plus iyo equal la isticmaalaya single statement hadda sidan u qoran tahay meesha assembly language marka la joogo ay saddex statement ahayd saas ay ku kala duwan yihiin way ka sahlan tahay marka aad u fiican tahay hadda haddii la dhihi lahaa lagu qoro assembly language waxay noqon lahayd saddexdaa line noqotay haddii la dhaho machine language lagu qoro saddexdaa line noqotay iyo lambaradaas aan kala garanayn marka saas ay kala duwan yihiin marka inaga hadda waxaan isticmaalnaa high level language oo C language C++ ay ka tirsan meeshaan waxaan rabnaa maadada aan baranayna history la ogaado xagee ka soo bilaabatay yaa soo bilaabay say ku imaatay inaan ogaano historyga ama taariikhda oo C iyo C++ taariikhda oo C ayaan ku horeynaynaa marka hore waxay ka kooban tahay C language waxay ka kooban tahay laba qaybood horta laba language oo la isku daray oo loo yaqaan BCBL iyo B ayaa la isku daray waa tableless languages kuwaas marka waxa waa inta badan language hore ahaayeen oo ka horeeyay C waxaa lagu sameeyey Bell Laboratories waxaana sameeyey ninka loo yaqaan Dennis Ritchie ninka loo yaqaan ayaa sameeyey wuxuuna ku sameeyey Bell Laboratories waxa waa Mareykanka qayb ka mid ah shirkad meesha ku taal Laboratory Bell waa shirkad magaceeda ayaa iska lahay laboratory-deedu ninka ku sameeyey halkaas markii horreysay ku qoray wuxuu ku daray marka asaga muxuu sameeyey marka tableless ay ahayd tii horeeto tan data-type u sameeyey marka data-type u sameeyey iyo feature badan ku soo daray marka okay maxaa lagu develop gareeyay markaas development language of Unix loo isticmaalay Unix marka la develop gareynay C language lagu sameeyay waxay noqotay marka u fiirsan marka C language waxay noqotay meeshii ay kuwii hore ahaayeen machine dependent ay ahaayeen waxay uga duwan tahay kuwii ka horreeyay marka ayada waa hardware independent oo macnaheedu tahay waa portable programka C language lagu qoro ani computer kale lagu fulin kara ee kuma xirna in kan lagu fuliyo kii lagu qoray in lagu fuliyo bas kuma xirna sidoo kale tana markii u horreysay version-kii u horreysay wuxuu soo baxay 89kii ANSI standard ayaa loo yaqaanay 89kii waxa ku xigay 90kii ayaa ku xigtay ISO standard publisher ayaa la asaasay markaas ayaa inuu horreysay la publish gareeyay waa soo socotay taariikh ahaan ilaa iyo 89kii ilaa 90kii waa la soo waday C++ marka haddana imaatay C++ isla meeshii baa lagu sameeyay iyada lafteeda waa extension of C language horta meesha marka wuxuu rabaa inuu ku dhaho meesha ugu hooseysa object oriented program featureskeeda maxaa ka mid ah ama maxaa lagu daray capabilitieska ay leedahay object maxaan ku dhahay ay C++ C uga duwan tahay maxay ahayd waxa waa C++ waxyaalaha lagu soo daray ee ay leedahay ama capabilitieskeeda waxay awood u leedahay inay qabato object oriented programming OOP ayaa la dhahaa object oriented programming language maxaa object oriented programming laga wadaa objectska ku qoran C++ waxay noqonayaan oo ku dhahay waa reusable software components markaad ku qorto oo aad ayada objectiga samaysid meesha rabtaad aad u isticmaali kartaa dib loo isticmaali reusable waa shay dib loo isticmaali karo one time use ma aha waxaa la sameynaa marka la sameynayana la qorayana objectiga waxaa laga wadaa model items in a real world markaan leenahay hadda glass aan arki doonaa object oriented programming waxa ugu horeeya glass marka waxaan leenahay sameynaa glass markaan abuurano waxaan leenahay glasska muxuu leeyahay relations oo objects ka dhex yaala ii sheeg relations ka dhaxeeya inoo sheeg maxaan ku dhahayay properties ku leeyahay inoo sheeg waxaasan ka hadlaynaa waa model waxa real world macnaha wax adduunka ka jira la model garayna waa diyaarsanay meel aan dhiganay hadhow marka u baahatid dib u isticmaali markaa object oriented programming ama programmers waxay features ku fiican tahay ama uga duwan tahay kuwa waxa kamid ah way sahlan tahay in la fahmo sidoo kale tana la saxo sidoo kale tana la bedelo aad u sahlan fahankeeda sixitaankeeda iyo in la bedeli karaba oo wax laga bedeli karaba intaba way sahlan tahay marka koorka ayada lagu qoro uu ka fuuyahay koorka kale ayada hybrid language waxa ku jira fiiri waxyaalaha la isku dardaray maxaa kamid ah waa C language waa C like style horta qaab ahaan style ahaan waxay ogtahay C language ay ogtahay
waxay kaloo dheer tahay object oriented programming waa la isugu daray labadiiba C language way ku jirtaa object oriented programming style way leedahay marka labada style bay wadataa C language stylekeedii way leedahay oo qaabkeedii ay u shaqaynaysay databaskeedii functionskeedii everything way ku jirtaa sidoo kale tan object oriented programming way badan yihiin oo Python iyo Java iyo waxaas ka mid ah way la wadataa marka labada dhinacba both way midaysata marka taas hybrid taas laga wadaa oo waxyaalaha la isku dardaray ayay ka kooban tahay C++ standard library waxay leedahay library ay leedahay oo standard loo yaqaano oo standard macnaha ama waxyaalaha maxaan ku dhahay oo lagu heshiiyey oo la isla wada fahmaayo oo saa in loo isticmaalo ay tahay aad waxba ka bedeli karin adiga C++ programming-keeda waa built from pieces lagu magacaabo classes and functions waxyaala yar ah ama qaybo la isugu geeyay ka koobanta loo yaqaano classes iyo functions standard library wuxuu ku dhahay C++ waxay reach kayin waa reach collection of existing classes and sidoo kale function jiro iyo classes jiro oo hore u jiri oo u yeelan karto ayaa ka buuxa wax badan oo lagu daraa jiro oo diyaarsan oo adigu isticmaali karto building block approach waxa la dhahaa la isticmaalaa si loo abuuro maxaan ku dhahay creating programs ama software reuse marka ayada markaad u canaysa hada functions waxa kamid ah power ayaa kamid ah log ayaa kamid ah xisaabta kulanka aad math kale marka classeska aadna wax badan ayaa ku jira ayada marka waxa soo dhan waa isticmaali karnaa oo dib loo isticmaali karo software reuse Java hadda nama qusayso laakiin waxa waaye Java waa object oriented programming ka kamid tahay ama high level languages ka kamid tahay ka soo tag ayada hadda waxba nagama qusayaan waxaan rabaa Pascal iyo Ada iyo kuwaas waa Pascal kuwa hore ahaan jirtay waa laga soo tagay waxaan rabaa marka inaan code hal example rabaa inaan qaato basics oo typical C++ environment-ga tusaalahan oo kaleeto C++ systemska lagu samayn karo maxaa waaye program development environment waa language tusaalahan oo kaleeto horta waa meel oo program lagu samayn karo waa luqad C++ standard library way leedahay systemyadeeda inta waa lagu samayn karaa extensionska ay qaato C++ marka haddaad aragtid program ay ku qoran tahay C++, haddaad aragtid CXX, haddaad aragtid .cc, haddaad aragtid .c intaasba waxaa iskale C++ iyo C bay wada leeyihiin almost laakiin inaga waxay noo qaadan doontaa programka hadda aan isticmaalayno CBB ayay qaadan doontaa insha allahu tacala marka haddaad .cbb haddaad meel ku aragtid C++ ayaa iskale okay environment-geeda marka meesha si u shaqeeya ayaa arkaynaa markaad koodka qoraysid steps-ka uu maraayo ayaa halkan laga hadlaya steps-kaas uu maraayo ee uu ku shaqeynayo ayaa laga hadlaya halkan steps-ka uu maraayo say noqonayaan ayaa inta laga sheekeynaya marka wuxuu ku dhahay phases ama maxaan ku dhahay markaad programka aad qoraysid adiga ee C++ samaynaysid aad qoritaankaaga laga bilaabo ilaa fuliinka inta ugu dhaxayso heer ku maraya kow edit ayuu maraa editka maxaa waaye waa markaan qorayno programka editor waxa la isticmaalna markaas edit markaad samaynaysid editorka isticmaalna hadda inaga meesha waxaan ku isticmaali doonaa def C++ oo kaleeto kow waa editorka markaad ka soo tagtid waxaa ku xigo preprocess ayaa ku xigo preprocess ama processor ayaa loo yaqaanaa preprocesska waxaa waaye inta badan processor ayaa la dhahaa markaas marka preprocessors ayaa ku xigo editorka lagu qoraa markaad preprocesska dhamaysid processorka ayaa loo gudbin rabaa markaas compile ayaa ku xigto waad compile garaynaynaa compile ayaan leenahay waa turjun camal waaye markaad compile dhahno compileka wuxuu samaynayaa linki asaa isku xirxiraya marka wuxuu isugu kaa xirxirayaa faylasha preprocessorka wixii header fileska loo yaqaanay iyo programyada hore isugu kaa xiraya load inuu ku shubo meeshii loo baahnaa inuu ku shubo oo loader la dhahaa marka xagga la joogo laakiin halkan wuxuu load garaynayaa kadib in la fuliyo xagga marka fiiri marka editorka wuxuu ku dhahay program marka u horeyso is created waxaa lagu abuurayaa ayadoo la isticmaalaya editor sidoo kale tan waxaa lagu isor garanayaa diski halkan waad abuuraysaa halkan aad ku save garaysanaysaa marka koobaad preprocessor program wuxuu preprocessor waxa la dhahaa jiro oo ah
ka horeeya processorka inta shaqada imaan preprocessor waxa lagu daraa waa calaamadaha ka bilowda hashka ma arki doonaa insha Allah ta'ala marka preprocessor program processes the code preprocessorada marka waxay sameynayaan inay process gareeyaan code-kii laano wixii loo baahnaan lahaa bay sii diyaarinayaan hadhow kaleeto code-ka marka gudaha loo galo mainka oo gudaha laga shaqeyn maago waxa la leeyahay waxaas loo baahan yahay waa diyaar waxaas loo baahan yahay waa diyaar preprocessorka marka wuxuu ka shaqeynayaa inuu diyaariyo ama process gareeyo code-kii compilerka wuxuu abuurayaa ku dhahay object code aan sidoo kale tan wuxuu ku soo gareynayaa diskiga marka hore programkaagu waa source code marka labaadna wuxuu noqonayaa object code marka horeysid qoraysa waxa loo yaqaanaa editor marka isticmaalayno waa source code markaan hoos imaano ee aan u imaano maxaan ku dhahaayay aan compile kadib markii la mariyana wuxuu noqonayaa object code noqonayaa linkerka wuxuu isku xirxirayaa ku dhahay object code-ka iyo library-yaashu isku xirxiraa wuxuuna abuurayaa ku dhahay executable file wuxuuna ku install gareynayaa diskiguna saaraya intaba diskii wada galaya primary storage marka la joogo marka primary storage maxay tahay loaderku muxuu ku shubay primary storage iyo secondary storage ay kala jiraan diski waa secondary storage kana RAM la keen RAM waxa lagu soo shubaya ku dhahay ama loaderku wuxuu dhigayaa programkaagii memory dhex dhigaa intuu ku soo shubay ilaa oo kisiya waa iyo waxaas ku jiraan CPU lagu dhiibo markii CPU lagu dhiibo wuxuu ka soo qaadayaa CPU laga soo qaadayaa waxa laga soo qaadayaa memory CPU la keenaya waa la fulinaa CPU wuxuu qabanaa marka instruction ka soo qaadanaya oo ku dhex jira memoryga uu fulinaya sidoo kale tan wuxuu ku install gareynayaa ku dhahay new data valueska meesha ayuu dib ugu celinayaa as the program executes markii qiimihii dhamaado meeshan labadan falaar waxa laga wadaa kan waa lagu soo shubaya qaarka laba dhinac uma socoto laakiin memory marka la imaado waxa waay CPU ga qaadayo uu soo celinaa uu qaada uu soo fulinaa uu soo celinaa uu qaada uu soo fulinaa uu soo celinaa markuu dhameeyana خلاص daatadii waxa uu kaydinayo ku dhahay daatadii dhamaatina kadib waxaan ku dhahay evaluation wixii dib loo kaydinaya hadhow programkii dhamaaday marka xaggan editor preprocessor compiler linker loader iyo execute maxaan ku dhahay ama execute mid ugu dhigayso CPU intayna CPU imaan programkaaga waa inuu inta soo maro tusaale ku tadaa dhahay xagee marnay waxaan ku dhahaa editor wax ku qorina waay marka aragto compile marka dhahay marka hore save gareey ku leeyahay waajib waa marka save gareey programkaaga wuxuu bilaabayaa inuu shaqo bilaabo shaqada markuu bilaabayo preprocessor shaqada waxa compiler ka bilaabana markuu compile ku bilaabo preprocessor dib loo fiirina waa la diyaarinaa linkerku wuxuu isku xirxiraa wixii oo loo baahnaan lahaa markii linkiga diskiga ku save gareeyo oo programkaaga diyaarsan yahay oo programkaaga object code-ka hor loo sameeyay memory la soo dhigaa memory marka la soo dhigo memory CPU ka sii qaadaya shaqada saas u soconaysa ilaa ay ka dhamaanayso insha Allah marka intaas aan rabaa inaan ku ekeeyo oo aan ku joojiyo maxaa yeelay waxaan dareemayaa in kasii badanaya marka waqti badan